بسم الله الرحمن الرحيم شن iyo tobanka bisha Shacbaan markay bishu kala baran tahay oo shan iyo toban tahay bisha Shacbaan in ku jirno xadiis kala duwan baa ku soo aroortay fadaa'il kala duwan oo leedahay intooda badan ma asixin sida culimada xadiisku ay sheegayaan waxa ugu dhow oo xadiis xasan ah culimada intooda badan ay gaarsiiyaan inuu xadiis xasan yahay xadiiska tilmaamaya inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam marka ay tahay shan iyo tobanka bisha Shacbaan habeenka ay bisha Shacbaan shan iyo tobanka tahay ilaahay wuxuu qaalacdaa subxaanahu wa ta'ala adoomadiisa oo dhan dabeetana wuu u dambi dhaafaa adoomada oo dhan ilaa laba qof mooyaane inta kale waa loo dambi dhaafaa labada qof maxay yihiin mushrikun aw mushaahin mid waa mushrik ilaahay qeyrkii caabuda waa nin gaal ah gaal nooc doonaha ka ahaado qof gaala ilaahay uma dhaafa ilaahay de soo islaamo kaasoo dambi dhaaf ma laha qofka labaad ee loo dhaafin waa qof oo uur ku taalo iyo calool xumo u haya dad muslimiin ah qof muslim ah buu gooyay dad muslimiin ah buu cuqdad u hayaa waa cuqdad low caloosha wax ku haya weeye kaana ilaahay uma dhaafin nabiga kaleey salaatu wasalaam marka laba qodob baynu ka faa'iideysanayna qodobka koobaad habeenka qof walba muslimiin inuu ku tala galo inuu calooshiisa xaaro oo dadka muslimiinta walaaladii u calool fayoobaado waynu ka faa'iideysan waliba si gaar ah cidii wax ku geysatay hadaad xasuusan tahay iska cafi hadaad xasuusnayna waxa tahay ilaahay qof walba wixii geystay cafis buu iga yahay calooshaada xaad si ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dambigaaga u dhaafo habeenkaas waxay labaadoo ka faa'iideysanaa walaalayaal khatarta ay leedahay inaad caloosha wax ku haysid oo dadku waxay ku yeelan aad ilaawi weydid waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam isku meel dhigay kii mushrika ahaa ee gaalka ahaa iyo kii caloosha dadka wax ugu hayay muslimiinta ah marka khatarta ay leedahay arintaas ku tusinaysaayo la fayoobaanta iyo qofka muslimka inuu calooshiisa xaaro mar walba inay aad muhiim u tahay inuu tusinayaa xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.